inta badan ciyaartoyda kubadda cagta waxaan aragnaa markay ku biirayaan kooxo kala duwan waxay ku dhawaaqaan in kooxdan ay tahay mid ilaa yaraantoodii ay taageeri jireen. qaarkood ayaa sheega marar badan kooxo kala duwan ay ku biireen. ciyaartooy badan oo yaraantoodii taageeraya kooxo kala duwan laakiin aysan u suuragelin inay ku biiraan. warbixinta waxaan ku eegi doonaa xidiga taageero u ahaa kooxo xifaaltan kala dhexeeya kooxihii ay ka mid ahaayeen ama ay u soo ciyaareen. lambarka koowaad Jordan Sancho. xidigan ayaa ku dhashay London laakiin la yaab maahan inuu taageero u ahaa kooxda Chelsea. wuxuuna aad u jeclaa Frank Lampard. si walba markii uu jiray da'da 15 sano wuxuu ku biiray akademiyadda kooxda Manchester City. 2 sano uu ku sugnaa wuxuu ka mid noqday kooxda Borussia Dortmund. laakiin xidigan ayaa ku soo koray Chelsea iyo Manchester City. inuu isagu jiro da'da 21 sano uu ku biiray United ayaa noqotay la yaab. marar badan ayuu bixiyay wareysi ayuu ku sheegay kubadda cagta inay tahay mid blue ah uu kala jeedo kooxihii uu taageeray yaraantiisii sida Chelsea iyo Manchester City. lambarka labaad Gareth Bale. wiilkii hore Tottenham waxa uu yeeri karnaa halyeegii Tottenham laakiin wuxuu yaraantiisii ahaa mid taageeraya kooxda Arsenal. wuxuuna jeclaa Thierry Henry, Vieira. hadalkaasi ma ahayn mid ay jeclaayeen inay maqlaan taageerayaasha Tottenham. wax badan uu ku soo qaatay laakiin wuxuu ahaa mid taageeraya kooxda Arsenal. lambarka saddexaad Harry Kane. noloshiisu wuxuu ku qaadanayaa weli Tottenham laakiin yaraantiisii ayaa la arkay isagoo xiran maaliyadda Arsenal. wuxuu qayb ka ahaa akademiyadda kooxda xilli da'diisu ahayd 8 sano. taageerayaasha Tottenham ayaa aad ugu xumaa sawirkaasi laakiin xidig ayaa sheegay in xilligaasi keliya uu doonayay inuu kubadda cagta ciyaaro. 1 sano ayuu ku qaatay akademiyadda Arsenal. xilliganna waa mid ka mid ah Tottenham. lambarka afraad Sterling. xidigan ayaa u soo ciyaaray kooxaha ugu waaweyn Ingiriiska sida Liverpool, City. waqtigan wuxuu ka mid yahay Chelsea laakiin yaraantiisu wuxuu ahaa mid taageeraya kooxda Manchester United. wareysigu dhiibay ayuu ku sheegay inuu ahaa taageero weyn Manchester United. sanadii 2007 ayuu daawado ka ahaa finaalka FA Cup ee ciyaareen kooxaha Chelsea iyo Manchester United ciyaar ka dhacday Wembley. lambarka shanaad Kevin De Bruyne. sheekada xidigan waa mid u eg Sterling. wuxuu u soo ciyaaray Chelsea wuxuu ka tirsan yahay waqtigan Manchester City laakiin yaraantiisa wuxuu ahaa taageero kooxda Liverpool. wuxuu aad u jeclaa Michael Owen. xitaa qolkiisa ayay u taalay maaliyadda Michael Owen iyo maaliyadda kooxda Liverpool isagoo xitaa sariirtiisa ku goglin jiray calanka kooxda Reds. dib yaraantiisii ama KDB xidiga lagu naanayso yaraantiisa wuxuu ahaa Never Walk Alone. lambarka lixaad Paul Pogba. inkastoo 2 jeer uu ka mid noqday United-ka Paul ayaa taageero u ahaa kooxda Arsenal. wareysigu dhiibo ayuu ku sheegay markaan yaraa waxaan taageero u ahaa Arsenal maxaa yeelay waxa uu ciyaarayay xidigo badan oo ka soo jeeda Faransa sida Wiltord, Clich, Vieira, Pierce, Henry iyo hogaamiyaha xilliga ee asna ahaa Faransiiska. lambarka 7 Solskjaer. midani waa la yaab. Solskjaer hogaamiyihii hore Manchester 11 sano ka badan ayuu ku soo qaatay Manchester. wuxuu noqday macallin laakiin yaraantiisa wuxuu ahaa taageero Liverpool. wuxuu waqtigiisa ku soo qaatay Manchester laakiin inuu taageero u ahaa kooxda Liverpool ay ahayd mid la yaab badan. kooxda xifaalta kabaan kala dhexeeyay. lambarka 8 Vinicius Junior. daayirka Real Madrid 2018 ku biiray Real Madrid laakiin wuxuu ilmeeyay habeen Barcelona soo laabasho ku sameysay Paris. goolkii uu dhaliyay Sergio Roberto wuxuu ku laabtay Brazil xilligaasi. xidig ayaa aad u jeclaa taageeri jiray Barcelona. 2017 iyo ku dhawaad inuu ku biiray kooxda laakiin isfaham waa dhanka lacagta ayaa dhacday taa oo keentay Madrid in xidig ay ku guuleysato laakiin waa taageere kooxda Barcelona. lambarka 9 Modric ama Luka Modric. mashiinka Real Madrid waa mid kale oo taageero u ahaa koox ay kooxdiisa cadow isku yihiin. wuxuu ku dayan jiray Johan Cruyff. mar haddaan maqasho halyeegii hore Barcelona waxaad garan kartaa inuu taageero u ahaa Barcelona. xidig Croatia ka soo jeeda marar badan ayaa lagu sawiray maaliyadda Barcelona. 2008 ayuu ku dhawaaday inuu riyadiisu rumeeyo laakiin uma suuragelin. Real ayaana qaadatay xidigan. wareysi hore uu bixiyey xidiga ee isku kooxda ama isku waddanka ahaayeen ee lagu magacaabo Ivan Rakitic ayaa ka sheekeeyey Modric isagoo inay ahaayeen kuwa yaraantooda jeclaa Barcelona laakiin Rakitic ay u soo gashay inuu ciyaaro Barca laakiin Modric uma suuragelin kooxdiisa Real inuu ciyaaro. lambarka 10 Neymar. haddii aad xidigo badan Real Madrid ah taageero u hayeen Barcelona markan xidigii hore Blaugrana Neymar ayaa taageero weyn u ah kooxda Madrid. wuxuu kaga mahadcelinayaa Robinho oo kooxdaas waqti wacan ku soo qaatay laakiin Barcelona ayaa heshay xidigan inkastoo uu ku dhawaaday inuu mar ku biiro waqtigii uu ka dhaqaaqa Barcelona. xidigan ayaa aad u jeclaa kooxda kubadda cagta Real Madrid laakiin uma suuragelin inuu xirto maaliyaddeeda. dhammaan xidigahan waa kuwa taageero u ahaa kooxda xifaaltanka uu kala dhexeeyay kooxdii ay u soo ciyaareen. waa kii xidiga ugu layaabka badan oo taageeraya koox cadowtinimo kala dhexeysa kooxdiisa.